لكن ما أنت واقع إنه كنا لاي بلشدينا ووضع علمه ومسائل ككلات دين الدنيا ده مركا لغا هادلايو نين تخصص كيسا iyo waxa uu gaarka u yaqaan looguma tago culumta adduunyada nin walba wuxuu yaqaan waa lagu xurmeeyaa oo looma weydaarto laakiin shayga kaliya ee sidii oran jireen muxuu ahaa timir xabaalta la oran jireen Soomaa waxa public iska caamka waxa laga dhigay diintii baa sidaas oo kale lagu shabahay ama loo ekeysay oo kii soo kacaaba madax iyo mijo oo imika hay'adaha gaalada laftooda qaar baa badarkaysa dil la xujeysanayo arrimihii diinta waxaan FGM ka la yiraahdo waxaan dumarka kuwan lagu saliday hay'ad hiblaayo iyo WHO baa tiri bay ka oranayaan miyaad aragteen waligeed hay'ad gaalo fadwoonaysa waa ala aakhiru zaman kan aynu aragnay hay'adii gaaladuna inay fadwada ku jiraan oo waxa la leeyahay fasalu bal hada weydiya gaaladii nan dafirsan nabinimada nabi Muhammad diidayo weydiya ahla dhikri cilmiga kuwa ehelka waa cilmiga la bal hada wax weydiya in kuntum adaahatin la ta'lamuna kuwa aan waxba garanay ahlu dhikriga jalaaluddin as-suyuuti waxa oranaya al ulamaa bit tawraati wal injiil bal culimadii ahlu kitaabkii hore ee tawraad iyo injiil yaqaanay bal hada waraysta oo waxa tiraadaan anbiyadiini la idin soo diray ma malaa'ig bay ahaayeen mise bashar waxa kale koobsanaysaa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna de culimadii kale muslimiinta ee sharciga iyo diinta aqoonta u lahaa weydiiya haddaydan idinku waxba garanayn yani cibraduna waa umumka oo mas'ala kasto diineed oo la isku qabto ayay u taalaa dadka caamada ah ama aan iyagu wax akhriini inay culimada wax weydiiyaan way ruuxu de ama waa caami waajibkiisu waa inuu waraysto weydiiyo culimada wax isagu inuu fatwoodo ma aha ama waa caalim oo isagii baa fatwoonayo de cilmi u leh masaa'ilkii diinta ama waa arday oo waxna waa garanaya waxna waa ka dahsoon yahay waa ka qarsoon yahay laakiin maanta waaqaca aynu ku noolahay bulshadeena waa wada culimo oo masaa'ilka kale diinta adduunyada marka laga hadlayo ninna takhasuskiisa iyo waxa uu gaarka u yaqaan looguma tago haday muhandis iyo engineer dhismo tahay haday dhakhtar caafimaad tahay haday qof de aqoon kala u leh yani culumta maadiga tahay culumta adduunyada nin walba wuxuu yaqaan waa lagu xurmeeyaa oo looma weydaarto laakiin shayga kaliya ee sidii oran jireen muxuu ahaa timir xabaalta la oran jireen Soomaa waxa public iska caamka waxa laga dhigay diintii baa sidaas oo kale lagu shabahay ama loo ekeysay oo kii soo kacaaba madax iyo mijo rag iyo dumar yar iyo weyn diinta waxbuu ka sheegaya marka waajibku wuxuu ahaa wixii diin ku saabsan de hay'adina kama fadwooto oo imika hay'adaha gaalada laftooda qaar baa badarkaysa dil la xujeysanayo arrimihii diinta waxaan FGM ka la yiraahdo waxaan dumarka kuwan lagu saliday hay'ad hiblaayo iyo WHO baa tiri bay ka oranayaan miyaad aragteen waligeed hay'ad gaalo fadwoonaysa waa ala aakhiru zaman kan aynu aragnay hay'adii gaaladuna inay fadwada ku jiraan marka ala kulli xaal diinta sida loo gacan bidixeeyay ama dad badani u fudaydsadeen bay ka mid tahay in cid walba ay diintii ka hadasho laakiin waxay ahayd in dadka lagu edbiyo oo lagu khasbo wixii diin ku saabsan ehelkeeda in loo daayo culimay u leedahay dadka wax akhriya ee culimada ah ee dadka diinta u sheega iyaga in la weydiiyay kuwa waxa ka shaqeynaya haday doonayaan inay qaraar iyo go'aan qaataan waxay ahayd culimada la yaqaan ee ahlu cilmiga intay u tagaan inay yiraahdaan sheekhow diintu maxay arinka ka qabtaa laakiin maanta halka waa la isla dhaafay inatii shabada ahayd wayse soo taagaysa iyadoo fatwoonaysa islaantii sodohda ahayd wayse soo taagaysa iyadoo fatwoonaysa farahay ka baxday marka de waa dabar la'aantaas waxa la wax dadkii dabraya in fara badan ma jiro laakiin waxay ahayd fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kul haday diin ku saabsan tahay wax walba ehel buleeyay ehelkeeda u daaya oo diinta fudaydsanina oo wax cid walba ay gacanta la gasho ha ka dhigina